waxaan xog buuxda kaga hayaa waqtiga uu dhacaya arooska Ilhaan Cumar iyo waliba saaxiibkeeda Meet kaasoo la shaaciyay iyo waliba qoyska madaxweyne Trump oo lagu casuumay ka qaybgalka arooskaasi iyo Soomaalida ka qaybgali karta arooskaasi oo aad u yar. warbixintan ayaan dul istaagayna warar lagu kalsoonaan karo oo helay channelkeena iyo waliba ilo ku dhow Ilhaan Cumar ayaa sheegaya in Ilhaan bila kadib ay la aqalgali doonto Meetin oo muddooyinkii dambe u dhaxeeyay xiriir saaxiibtinimo labadooduba. xogtan ayaa sheegaya in Ilhaan iyo Meetin ay ku heshiiyeen aqalgalkooda sanadka soo socda bisha Janaayo 2020 gaar ahaan 10ka bisha Janaayo kaas oo ka dhici doona magaalada New York caasimadda waddanka Mareykanka. arooskaas ayaa la sheegay in lagu casuumay dad magac ku leh Mareykanka iyo waliba dawladda, balse Soomaalida arooskaasi ka qaybgali karta ayaa kuwa aan aad u badnayn. dadka lagu casuumay arooska ayaa waxa ku jira fanaaniin waaweyn oo dunida saameyn ku leh, gabdhaha uu dhalay madaxweynaha talada haya Mareykanka Donald Trump iyo xubno kale. Ilhaan Cumar iyo ninkeedii hore Axmed Xirsi ayaa la sheegayaa inay kala tageen sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka, waxaana la sheegay in Ilhaan haatan ay nolosha guri aad u qaalisan ay ku nooshahay, halka ninkeedii hore iyo waliba caruurteedna ay degayin guri hore. arooska Ilhaan ayaa hadda lagu balamay inuu dhaco bisha Janaayo 2020 tobankeeda, wuxuu noqon doonaa aroos si weyn loo hadalhayo saameynna ku yeesha waddanka Mareykanka, waxaana la sheegay in lagu casuumay gabdhaha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Trump iyo Ilhaan qudhoodana siyaasad ahaan iskuma fiicna.